waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha kadib markii uu shalay madaxweyne farmaajo caddeeyey in howlaha diyaarinta sugidda amniga iyo qabsoomidda doorashooyinka loo madlan yahay ee Soomaaliya ku wareejiyay wasiirkiisa koobaad injineer maxamed xuseen rooble waxaa la isweydiinayaa maxay tahay mas'uuliyadda rooble la wareegay uusan horey u haynin hadda waxaan jawaab u raadinaynaa maxaa hor yaalla ra'iisul wasaaraha mas'uuliyadda uu la wareegay waa maxay amniga maxaa ka jira waqtigan kooban iyo shuruudaha dowlad goboleedyada qaarkood sidee ayuu uga gudbi doonaa rooble waxa uu bilaabayaa ka shaqaynta tubta doorashooyinka uma aha markii koowaad ee uu arrintan ka shaqaynayo markii ay xasaanadda hore u siiyeen mudanayaasha golaha baarlamaanka bishii Sebtembar sanadkii hore waxyaabaha uu ballan qaaday ee koowaad ayay qayb ka ahayd meelmarinta heshiis la isku raacsan yahay oo doorasho sidaasoo kale markii ay dhinacyadu ku heshiin waayeen magaalada Dhuusamare bishii February ee sanadkan isaga ayaa ahaa cidda magacowday xubnihii guddiga farsamada oo uu cilaamiyay shirkiisa afgaradka ay ku soo gaareen ee Baydhaba waxaa loo arkayay inuu yahay matoor ka dhaqaajinaya arrinta tubta doorashooyinka tani waxay jawaab u tahay in ra'iisul wasaaruhu horey uga shaqeynaya arrinta doorashada hadda ay u dheeraan doonto mas'uuliyadda ku wajahan culayska ugu weyn ka qaato sidii darafyada oo dhan kalsoonidooda loo abuuri lahaa dhacdo kale waa tubta amniga ee doorashooyinka waa mid xasaasi ah tani madaxweyne farmaajo ayaa shalay ka sheegay Muqdisho inuu wasiirkiisa koobaad ku wareejiyay amniga doorashada taas durba waxaa laga bixiyay fasiraado kala duwan khubarada xagga amniga ayaa rumaysan in farmaajo uu wareejiyay amniga doorashada taasi ay tahay mas'uuliyad horeba ay u haysay xukuumadda injineer rooble balse mucaaradka iyo dowlad goboleedyada qaarkood ay hadda u fahmi karaan nooc cusub amniga doorashada waxaa loola jeedaa ayay leeyihiin khubarada amni maamulidda ciidamada amniga ee ka shaqaynaya maalinta doorashada iyo goobaha doorashadu ay ka dhacayso gaar ahaanna booliiska maamul goboleedyada kuwa federaalka iyo amisom oo goobahaasi amnigooda maamulaya meelaha ay joogaan si la mida sida loo maamulayo guddiyada doorasho ayay tahay in dhammaan darafyadu ay ku qanacsan yihiin guddiga xagga ammaanka ee nabadgelyada ah rooble tani kama yeeli doonaan dowlad goboleedyada qaarkood gaar ahaanna waxaa la rumaysan yahay in Puntland iyo Jubbaland ay dood ka soo celin doonaan in boolis federaal iyo mid amisom la geeyo xarumaha doorashooyinku ay ka dhacayaan si gaara Puntland ma joogaan ciidan federaal ah oo booliis iyo military ah amisomna warkeedaba daa sida ay dowlad goboleedyada kale ugala simi karta arrintaas waxaa loo arkaa mid ayana isweydiimo ay harayn doonaan taasi waxay u arkayaan dowlad goboleedyada qaarkood mid aysan aqbali karin laakiin doodda xiisaha leh waa sidee ayay saddexda kale ee maamul goboleed ku aqbali doonaan in dhankooda doorashada ay maamulaan boolis federaal iyo military ah dhinaca kalena amisom dowlad goboleedyada kalena aysan saamayn ku yeelan karin arrintaasi dood kale oo xooggan waa arrinta guddiga doorashooyinka magacaabidooda oo keeni doonta qanacsanaan darafyada ah ama kala bood kale oo siyaasadeed isbahaysiga badbaado qaran waxay hore u diideen arrinta guddiyadii la magacaabay wax ka beddelkooda ayaa sahlan waqtigan sida loo kala shaandhayn doono waa tub kale oo aan sahal ahayn laakiin taas oo laga yaabo inay gudaha fiilla Soomaaliya xataa saameyn ku yeelato dadka oo daraska siyaasadeed ka bixinaya xaaladda Soomaaliya iyo arrinta cusub ee ra'iisul wasaaraha ayaa leh maalmo siyaasadeed oo degan ayaa hadda la galay balse kuleylkeeda mar kale ayuu qarxi doonaa waana xilliga roob la wajaho xaaqada gudaha taala wuxuu dhadhamin doonaa culays xoog badan oo nasiino badan aan lahayn soo jeedka ayaa badan doona qancinta dowlad goboleedyada qaarkoodna way ku adkaan doontaa mucaaradku waxa ay ka urin doonaan weli inuu yahay xubin u shaqaynaysa farmaajo madaxweynihiisana dhisaysa taas laftirkeedu ma sahlanaan doonto kalsoonida mucaaradku ay siinayaan ayay leeyihiin khubarada xagga siyaasadda ah
dhinaca kale doodaha xiisaha leh waa cidda shirgudoomin doonta kulamada looga hadlayo doorashooyinka ee dhici doona xilli Rooble uusan ka mid ahayn saxiixayaashii heshiiska doorashada haddana ma mid cusub ayuu ku soo dari karaa taasoo ay isweydiimaha durba iyana soo shacbaxaysa sida uu ku qancinayo madaxweynihiisa oo xifaaltan adag oo siyaasadeed kala dhexeeya dowlad goboleedyada qaarkood iyo mucaaradka ayaa ah tab kale oo iyana ku noqonaysa imtixaan siyaasadeed Rooble habraacyada qeexaya ama faylka doorashada sida loo maamulo waa qiimeynta ugu weyn ee mustaqbalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble abuuridda kalsoonida doorasho natiijadeeda lagu qanci karo waa shaqada ugu dheer ee u ooli doonta maalmaha iyo saacadaha soo wajahan xalayna waxa uu sii bilaabay dadaalka la xiriira xaqiijinta tubta doorashooyinka iyo isku raacidda dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda